ardaygu wax buu baranayaa, macallinkuna dadaal ayuu ku bixinayaa. hooyadu canugar bay culuq siinaysaa, aabbuhuna wuu ku farxayaa isaga. ehelkoodina way u hambalyeynayaan dhammaantood. qof baa adduunka faaruqaya halka uu qof kale soo camirayo. maalintu waa maanta oo keliya, maalinta kalena waa maalin ka duwan shalay. mid ayaa xoog yeelanaya halka uu mid tabardaraynayo. culimmadu way wacdiyaan, balse qaar baa kuwaana qaata. waayuulka sariirtoodu laalaa oo biyuhu maliqi karo, cuno iska daaba. dhallinyaradu way xooggan yihiin oo iyaga ayaa doorta waxay cabayaan iyo waxay cunayaanba. adduunyadu waa maalin ama laba maalin oo qura, balse dadku waxay u matalaan qaabab kala duwan. mid baa xanuunsanaya oo cabanaya halka uu mid kale caafimaad qabo. hooyo ayaa murugo ku nool halka hooyo kale ay nolosha ku faraxsan tahay. carruur ayaa weynaya waalidkood hadda ku nool nolol aad u hoosaysa. qofna wuu nool yahay isagoon caqiidada waxba ka aqoon, yacni islaamka. alla ayaa si og meeshii uu dambeynayo. saynisyaanku wuxuu isku howlaa siduu wax ku soo saari lahaa, halka fuqaraduna ay isku howlaan raadinta quudka maalintaas ay cuni lahaayeen. adiga waad faraxsan tahay halka qof kale uu murugo la nool yahay. adduunyadan ayaan joognaa oo waan neefsanaynaa, balse kuwa caqliga leh ayaa uga shaqaysta maalinta aakhiro. haddaad maanta nooshahay beri lama ogaa, haddaad beri gaartana saad dambe lama ogaa. macnaha guud, haddaad maanta nooshahay beri ma noolid. allah ayaa loo laabanayaa. haddaba ogaada, adduunkan ma ahan mid lagu waarayo oo la sii joogayo. alla casa wajalla waxa uu qur-aankiisa ku yidhi, maalmaha adduun ma sinaaniyaan. kii fiyooba wuu xanuunsani, kii noolaa wuu dhimani, kii faraxsanaa waxaa soo maraya maalmo murugo iyo tiiranyo leh. qof ayaa dhimanayaa halka qof uu dhalanayo. adduunkan aan ka shaqaysano, taas ayaan ku badbaadaynaa dhammaanteen. alla waa caafi inta xanuunsan, una naxariisa inta dhimatay.